بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشبكة عالمية قبل هوجة برشة مالتي ميديا. وحن بلعبين يمكننا أما أن بلعب دونا عشان كسبسن فيديو إديتينج قيبت اللي راهو tips and tricks تباها يو حيلادها و إديتينج ليه أما kala shaandhaynta ay leedahay tabaha way farbadan yihiin kolba mid ayaan u soo qaadan doonaa insha Allah casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo sixi lahaa kalar hadii kaamirada adoo duubaya ama kaamirada dibadda aan noqoto ama gudaha noqoto meel walba noqoto kalar aan kalarkeedii ahayn midab aan midabkeen ahayn hadii ay kaamirada ku soo duubto adoo maalin duubaya habeenay kugu soo hagaagto oo aragto adoo duubaya inuu kalarka u isbedelay ama midabku isbedelay sidee baa la yeelayaa mala tuurayaa way su'aashu may dibadda wixii ku soo qaldamo waxaan baranaynaa sida loogu sixi lahaa editingka qaababka iyo habka la marayo inta nooc iyo systemku waxay noqon doonaan waxaan ku arki doonaa casharkeena koowaad casharkan waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah injineer maxamed cabdullaahi baadey bismillaahi raxmaani raxiim marka aad doonaysid inaad saxdo video kalarkiisa ama midabkiisa isbedelay ama sida la doonayo aysan ahayn ama white balancegiisii oo markii hore ee kaamirada la duubay la ilaabay ama la qalday marka la ilaabo la qaldo waxa lagu garan karaa midabka ayaa wuxuu noqdaa light blue ama blue red ama casaan green ama akhtar aan yiraahdo marka sidee baa loo sixi karayaa anagoo isticmaaleyna Corel Video Studio X9 Ultimate si fudud ayaa loo sixi karayaa taasoo macnaheedu yahay sida clipkan oo kale marka saa way eegtid waxaan arkaynaa clipkan light blue ku badan la halka bal eeg light blue badan marka waa inaan ka dhignaa midabkii caadiga ahaa hadii white balance-ga uu ku soo qaldamo ama la ilaabo kaamirada marka la duubayo dib la'aan waxa lagu sixi karayaa video editing ama computerka lagu sixi karayaa wadada aan marayno aan si fiican u eegno dhowr nooc loo sixi karaa bal marka hore waxaan qaadanaynaa magaca guud ee lagu saxay waxa la yiraahdaa ama qaabka loo saxay waxa la yiraahdaa color correction sidee baan ku heli karnaa color correction laftigiisa halka ay nagu muuqdo marka inaan double click ama laba jeer ban tuujinayna ama riixina waxaan dooraynaa video kadib waxaan tagaynaa color correction marka tagno waa qaybtan waa white balance afar qaybood ama afar hab oo loo sixi karo ayaa meesha jira marka qaybtan waa color correction wixii colorka ahaa sida adiga marka aad doonaysid aad ka dhigan kartaa haddaba su'aasha ugu horeysa muhiimka ah waxay tahay sidee baa lagu gartaa laba nooc baa lagu gartaa marna waxaan ku garanaynaa halkan oo light blue ah marna waxa lagu yaqaanaa halka orange ka ayaa lagu garan karaa waa inuu noqdo cadaan soo noqdo marka ta koowaad waxaan ku eegaynaa automatic toos waxaan u tuujinaynaa automatic waa inuu kalarka isbedelaa marka automatic tuuji wala midabkii kii maaha wuu isbedelay midabkii sax ahaa buu noqday qaab labaad baa loo sixi karayaa qaabka labaad markaad doonaysid inaad u saxdo marka hore waa dib u noqo anduudhe kalarkiisii caadiga ee light blue kii la sixi lahaa baan joognaa haddana waxaan ku noqonaynaa color correction waa sidii waayo ma saxsana kalarkii marka labaad ama qaabka labaadan ku eegayna waxay tahay waa inaan isticmaalnaa burushka markaan tuujino oo mouse-kan uu soo raaco clipka ama waxa aad doonaysid inaad kalarkiisa saxdo meel cadaan uu ka leeyahay ama midab cadaan ah meel uu leeyahay ayaa la doonaysaa burushka soo tuuji burushkan sidina waka wax cadaan waxaan ka haynaa halka
oo iftiinkaaba cadaanka inta kale waa akhtar haddii aad kuwa kale aad ku taabato midku isbedela مثلا akhtarka ku taabo casaan buu noqday ka noqo waxaad ku taabataa halka cadaanka automatically wuxuu noqday sida la doonay marka cadaankaas noogu haboon waxa la yiraahdaa white balance sababta loo yiraahdo iyaduna 10 gaar baa ku qaadan doonaa wala taa iyaduna qaybta labaad halkan kaga tagno dib aan u noqono waxaan u noqonaynaa halkeenii midabkii bluega ahaa ama casaankaba mid ka doonta noqon haddana qayb saddexaad si aan u saxno ama aan u doorano haddii labada qaybood oo aan wax ka garan weyno waxay tahay color correction ka marnaa tooji waa sidii aan ugu talagalnay waxa yaala halkan qaybo fara badan ilaa 6 qaybood ka kooban marka aan mid u eegno waxaan ku eegaynaa markii hore in guluubkii kuuskuusnaa ama qashaafada ahayd in lagu sawiray ama kaas ayaan ku tuujinayna si uu u saxmo waa qaybta manualka guluubka taabo waa blue waa qalad sax ma okay waxaan taabanayna fluorescent-ga in yaro light blue yarba ku jira sidii hore maaha midabku ka fiican yahay sidii hore dad baa isticmaala badanka European-ka ayaa aad u isticmaala haddana waxaan tagaynaa cadceedii waxa macnihiisu wuxuu yahay markiisa hore marka la sawiray maxaa taagnaa waxa taagneed waqtigu waxa ahayd waqti cadceed ay jirto ama maalin bay taagneed marka maalintii baan taabanayna haddana automatically maalintii kalarkii maalinta sax ahayd buu siiyay qaybta mar haddii cadaan noqoto kalarkaagu waa sax dib u noqodana light blue baan haysanaa qaybtii afraad baan u gudbaynaa qaybta afraad waxa weeye temperature-ka weeye temperature-kaas waxaa lagu saxayaa godka option-ka tag marka si ay kuugu sahlanaato waqti kaaga lumin waa inaad dhanka midig u socotaa ilaa uu godka cadaankaaga noqonayo wala cadaan buu noqday midabkiina isbedelay waxa dhici karta inaad meel yar cadaan ka weydo automatically inaad fahmi weydo maalintii iyo habeenkii iyo cadceedii iyo wixii ay tahay daruurtii inuu qalad ka galo taas qaybtaas afraad ee iyadana ku saxi kartaa haddii white balance uu ka soo xumaado ama aad soo ilowdo waxaan ogaanayn lagu saxi karo editka casharkeena ku saabsan color correction halkaa inoo joogo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته